علينا من عظيم حديثه عن فتنة ستموج يوما بل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. داود يا الملك السؤال دافع دون كجوكتان، رمضان مبارك. حديث كنا مانتا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. إيمانك معانكيسا. أنس ابن مالك إلهي كرها للنقضة، وحال قوري إنو النبي صلى الله عليه وسلم يري قفكي صدح عرمود dhexdiisa laga helo waxa uu helayaa saddexdaas arrimood sababtooda iimaanka dhadhankiisa. ruuxii allah subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa ka jeclaada wax kasta oo iyaga ka soo hara, qofku waa inuu qofku ku jeclaado alla dartiis. inuu qofku kahado ama karaahiyaysto inuu ku laabto gaalnimo kadib markuu ilaahay ka badbaadiyey, sida uu u kahanayo in naarta lagu tuuro. waxaa wariyey bukhaari iyo muslim. haddaan xadiidka lafdigiisa aan xaraf xaraf isku dul istaajinno, anas ibnu maalik ilaahay ka raali noqdee waxa uu yidhi: qaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam, nebi maxamed sal alla alay slam waxa uu yidhi: halaathun man kunna fiihi, saddex qofkii ay ahaadaan dhexdiisa ahaadaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala saddexdan ugu deeqay, qofkaas wajada bihinna xalaawata aliimaan. qofka saddexdaas ilaahay subxaanahu wa tacaala saddexdaas sifo, saddexdaas khasladood ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey, waxa uu helayaa macaanida iyo dhadhanka iimaanka. marka macaanka iyo dhadhanka le macaanka sokorta iyo malabka wax ka sii macaan wey. saddexdaasi marka maxay kala yihiin? man kaana allahu warasuuluhu axabba ilayhi mima siwaahuma, ilaahay iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam inuu jeclaado oo wixii ka soo haro oo dhan oo xagga iska mariyo, ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa uu horumariyo jecelkooda wey. kow, taasi markii qofka laga helo waa midda koobaad. midda labaad, wa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah, qofku inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala dartii wax u jeclaado. hadduu wax jeclaanayo alla dartii, hadduu wax nacayo ilaahay dartii inuu naco, oo naceebka uu qofka ku nacayana alla dartii ay ahaato, jacaylka uu ku jeclaanayana ilaahay subxaanahu wa tacaala dartii ahaato. oo qofka ilaahay dartii haddaad u jeclaatid waxaad ka mid noqonaysaa kuwa carshiga ilaahay tabaaraka wa tacaala harsanayo. النبي إنه شيء 7 يذلهم الله في ذله يوم لا ظل إلا ذله. تضوض هرسانيسو هرك إلهي سبحانه وتعالى مال أون هرجل كو هرساني النبي صلى الله عليه وسلم. وإنه شيء أيو كم النقنية كو مرك هرك النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وإنه شيء هرك أنا هرجل كو هرساني أيو سوهز قليا. محاكم ذا إن إلهي سبحانه وتعالى درتي وقفك وجعلاد. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. دو جعلانا يجعل كاس أقاضي وحنقونيا مثل أجل الله تبارك وتعالى كيمت. أنا وحكا أون أجعلان الدنيا سكون جعلان قابك لو سكون جعلان جعل كيس ونقض مد الله سبحانه وتعالى درتي وجعلانا تاسمرك قفك وحلاوة الإيمان أيو هذا ياوي وإيمان كردن كيسي يمعاني ديسي أيو إلهي سبحانه وتعالى أو داقي. وكذلك وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه.
inuu sidoo kale u dhibsado oo u naco inuu gaalnimo ku laabto kadib markuu ilaahay tabaaraka wa tacaala ugu deeqay iimaan adoo ilaahay islaamnimo ku siiyey inaad gaalnimadii inaad ku noqotid inuu qof u karho sidii maaragtay in naar lagu tuurayo soo naar lagu tuuro camal inuu nacawe oo wax la nacawe dunuubtii iyo macaasidii iyo kufrigii iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu caasiyey inaad u nacdid sida maaragtay naar lagu tuurayaan ka wadaaye inaad u nacdid ayaa loo baahay marka saddexdaas qofka ilaahay tabaaraka wa tacaala ugu deeqay waxaa weeyaan wajada bihinna xalaawata aliimaan iimaanka macaanidiisii dhadhankiisii ayuu qofkaasi helay wey oo maxay tahay kow ilaahay subxaanahu wa tacaala darti jecelkaas marka maxaan ka faa'iidaynaa xadiiskan kow waxaynu ka faa'iidaynaa inuu qofka ilaahay iyo rasuulkiisa sokadooda waxbana jeclaan oo jaceylkan caadiga uu iska noqdo wax iska normal laakiin jaceylka dhabta ah inuu noqdo mid ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa la jeclaado wey waad garanaysaan cumar khadaab radia allahu tacaala canhu ardaah oo saxaabi jaliil ah oo ragga jannada loogu bishaareeye maarata ragga ugu horreeya ah haddana nebiga marka uu naftiisii uu xoogaa isxijiyey weli maadan wuxuu kamaalka iimaankaaga ma buuxsamin wey ilaa uu naftiisa qadimay ma fahanti marka naftaada iyo maalkaaga iyo maarata wax walbaba inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa kaga hormarisid wey taas waa faa'iidada koowaad inuu ka qaadana xadiidka faa'iida labaad inuu qofka jacayl hadduu qaadayo inuu qofkan wax kale ku jeclaan ilahay dartii ku jeclaado oo reer qansax iyo reer qurac iyo waxyaala maanta dal isku jeclaa beri lagu kala boodi karo oo maxabada ilaahay subxaanahu wa tacaala dartii ayadana faa'iido inay leedahay qofka ilahay dartii loo jeclaado waxaa weeye darajaa lagu helaa oo carshiga ilaah lagu harsadaa oo ilahay baa adigana ku jeclaanayo ilahay baa adigana ku jeclaa markaad qofkaas ilahay dartii u jeclaatid faa'iidada saddexaad inuu ka qaadanayno waxaa weeyaan walaalayaal xadiidkan uu noo tilmaamaayo in qofka gaalnimada iyo wixii xumaa ee liitay inuu ku noqdo uu u karho sida fakaannama asagoo naar lagu tuuraayo naartaas u naco in la geliyo inuu saa ayadana u naco ayaynu ka qaadanaynaa xadiiskan cadiimka ah wax nahyi ah oo hadda inoogu sugnaaday oo uu leeyahy waxaas oo nahyi ka soo arooray ma jiro laakiin fawaa'idiisaan ka qaadanaynaa laakiin jacaylka iyo maxabada iyo waxaasoo dhan ilaahay dartii inay ahaato ayuu xadiiska iskugu soo biyashubanayaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waxaa jawaab ahaan soo jawaabay su-aashii aynu idin weydiinay Kalson TV qaybta Facebooka commentiga waxa ku jawaabay qof magaciisa ku soo gaabiyay Al Aska Usman Ali maasha Allah dadka soo dhaweysay sanadii labaad ee hijriyada ayuu u dhacay dagaalkii Badr bishii Ramadaan bay ahayd laakiin tirada saxaabatu kiram ridwanullahi alayhim maadan haleelin weli jawaabtaasi waxay la jirtaa daawadayaasha soo tooska ah u daawanay barnaamijkan maalin walbo iyo hal xadiiska maalinlaha ah sika sabaatee su'aasha kale maanta aan idin weydiin doono insha Allah tabaaraka wa tacaala waxay noqon doontaa walaalayaal waxaad sheegtaa saxaabigii jilka lagu magacaabi jiray sayfullahi almasluul seefta ilaahay ee galka baxsan ee ciidamada muslimiinta guusha iyo liminta mar walbaba u soo maaragtay jiidi jiray asagana ku dhintay asagoo sariirtiisa ama firaashkiisa saaran jeclaana inuu dhinto asagoo shahiida saxaabigaas magaciisa ayaan u baahannahay jawaabtana waxaan soo sheegi doonaa cid allaale ciddii commentii kaga soo jawaabto haddii ahaan la dhanka YouTube-ka ama haddii ahaan la dhanka Facebook Kalson TV sidoo kale waxaad ku soo diri kartaa jawaabtiina weydii @kalsontv.com ilaahay khayrka nagu jamciyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala amalkan ikhlaas naga yeelo رمضان كان الله تبارك وتعالى هينقى أقبله وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته